السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرday kusoo dhawaada cashirkeeni sagaalaad ee book intermediate-ka cashirkeeni weli waxaan ku guda jirnaa comparative adjectives waan ku guda jirnaa intayna cashir guda gelin waxaynu dib u soo bilaabaynaa ama aynu yar eegaynaa waxaan shala qaadanaa oo ahaa waxaan qaadanaa maxay comparative maxaan niri waxa loo isticmaalaa marka laba shay is barbar dhigayo comparative-kan waxay ka mid yihiin waa qayb ka mid ah sifooyinka ama adjectives-ka weeye waxaan u qaybin adjectives waxaan u qaybinay kuwa hal dhawaq leh iyo kuwa hal dhawaq in ka badan ba leh okay waxaan niri kuwa halka dhawaq leh marka laga dhigo comparative waxa lagu daraa wax kale lagu daraa kuwa labada dhawaq leh ama labada vowel sound ka kooban ee haddana ku dhamaada y ama ku dhamaada ereyga xarafka y ayaa lagu daraa ama ya ku dhamaada okay waxaan kaloo niri comparative-ka mar walba waxa ka dambeeya xarafka than ayaa ka dambeeysa mar walba waxa ka dambeeya than kelmadda than ayaa ka dambeynaysa comparative mar walba okay maanta waxaan qaadanaynaa wax weeye sidii su'aal loo gelin lahaa comparativeska ama aad qof u weydiin lahayd ama aad qof saaxiibkaaya aad u weydiin lahayd inuu laba shay isu ka barbar dhigo ama uu laba shay kala doortada ama aad maxaad u weydiin lahayd adoo isticmaalaya su'aal adoo isticmaalaya comparative adjective okay waxaanu haysanaa xaggan 1 2 3 4 5 6 7 toddoba su'aalood baynu haysanaa iyo toddobadooda jawaabood number 1 is your father older than your mother? Is your father older than your mother? Okay, waxaan haysanaa xaggan older oo ah the comparative. Older oo ah the comparative. Maxaa ereyga wuxuu ahaa marka hore old weyn older ka weyn. Okay, waxaan ku darnaa maxay er ayaynu ku darnaa er. Okay, then your mother. Aabaha miyuu ka weyn yahay hooyada? Aabaha miyuu ka weyn yahay hooyada? No, my father is not older than my mother. Maya aabay kama weyna hooyaday. Alright, it's not older kama weyna hooyaday. Okay, so first of all waxaan isticmaalnay than xageena joogtaa danta xageena dhignay waa maxay after ama waxay ka dambaysaa maxay comparative mar walba waxa ka dambeynaya than. Okay, no, my father is not older than my mother. He is younger. Maya wuu ka yaryahay kama weyna hooyaday laakiin wuu ka yaryahay. Okay, is Brussels bigger than Berlin? Is Brussels bigger than Berlin? Okay, magaalada Brussels la yidhaha miyay ka weyn tahay magaalada la yidhaha Berlin? No, Brussels isn't bigger than Berlin. No, Brussels isn't bigger than Berlin. Okay, and Brussels kama weyna Berlin. It is smaller. Way ka yar tahay. Okay, ila eega labadan qaybood maaha jawaabta rasmiga iyo labadan qaybood oo kaleeto it is smaller iyo he is younger. Okay, waxay ardayda qaar isweydiin doonaan younger waa comparative smallerna waa comparative soo ma laakiin maxaa loogu daba marin waayo than okay jawaabtu waa simple markuu qofkan ku weydiiyey aabaha hooyada miyuu ka weyn yahay oo ardaygan kaleetana ku jawaabay maye kama weyna jawaabtii uu bixiyey. Okay, qaybtan kaleeto waxay noqonaysaa maxay ta'kiidin ama maxay ahaa like kusii adkayn ama inaad yani statementkaagii aad kusii darto statementkaaga aad sii xoojiso. Okay, waa sii xoojin marka sii xoojinta uma baahna we already know the answer marka horeba jawaabta waynu ognahay oo ah aabaha hooyada miyuu ka weyn maye kama weyna. Okay, he is younger wuu ka yaryahay. Okay, marka hadalkii unbaa wuxuu naga noqonayaa soo noqosho haddana he is younger than my mother haddaynu niraano hadalka ayaa naga sii dheeraynaya oo wuxuu noqonayaa soo noqosho waan ogna marka hore in la isbarbar dhigo maxay ninkan hooyadii iyo aabihiisa ma
Okay, so markaad tiraahdo maxay like hooyaday aabahay hooyadii kama weyna, haddana waxaad oranaysaa aabahay hooyadii wuu ka yahay mar labaad xitaa Soomaali marka la weydiiyo. Alright, xitaa Soomaali marka la weydiiyo ereyga soo maceli soma marka okay Ali Ahmed miyuu ka weyn yahay, waxaad leedahay maya kama weyna, that's it. laakiin mar labaad ma oranayso soo ma celinaysid Ali Ahmed wuu ka yar yahay may, so like maya kama weyna ee wuu ka yar yahay, xagga waxu taagantaa maxay ee wuu ka yar yahay, kama weyna ee wuu ka yar yahay. Okay, sidoo kale magaaladan waa saa oo waxaan niri no, Brussels is not bigger than Berlin. Brussels Berlin kama weyna. Okay, and it is smaller way ka yar tahay. Okay, it is smaller way ka yar tahay, waa xoojin kaliya. Okay, waa xoojin kaliya, waxaan isticmaalnaa comparative sax, laakiin markan waa xoojin kaliya ayaynu ka wadnaa. haddaan soo celino sentence-ka ayaa inaga xumaanaya ama hadalka ayaa naga far badanaya, wuxuu naga noqonayaa hadal isku daba noqda oo maanta oo dhan aan la fahmin. Are you taller than me? Are you taller than me? No, I'm not taller than you. I am shorter than you. Okay, and are you taller? Ma diga dheer tahay than me? Okay, look, than mar walba way imanaysaa meesheeda. Okay, are you taller than me? Okay, no, I'm not taller. I'm shorter. I am shorter. I am shorter than you. Waan ka gaabnahay. Alright, and is water cheaper than milk? Is water cheaper than milk? Is water cheaper than milk? Yes, water is cheaper than milk. Alright, biyuhu miyay ka raqiisan yihiin caanaha? Ha, biyuhu way ka raqiisan yihiin caanaha. Okay, qofkan wuu jawaabo undaashay. Okay, and is it colder in Brazil than in Germany? Brazil miyay ka qabowdahay Germany? Okay, colder. Okay, again waxaan sanamhay than. Okay, colder than. Brazil miyay ka qabowdahay Germany? Okay, ama jawiga Brazil miyuu ka qabowyahay kan Germany? Okay, qofkan wuxuu ku jawaabay alright, Germany waa Europe, Brazil waa Latin America, mar walba waxa qabow Europe sama. No, it's not colder in Brazil than in Germany. Maya Brazil kama qabowga Germany. It is hotter. It is hotter. Way ka kulushahay ama it's hotter. It's hotter. Way ka kulushahay oo Brazil ayaa kulul. Okay, maya kama qabowga way ka kulushahay. Alright, are you happier? Are you happier at the end or the beginning of the week? Alright, keebaad faraxsan tahay dhamaadka ama bilowga weega? Keebaad farxad badan tahay? Yani adiga shakhsi ahaan, I am happier at the end of the week. Okay, waxaan faraxsanahay weega qaybtiisa dambe ama weega markuu sii dhamaanayo ayaan farxaa. Is English easier than French? English miyuu ka adag yahay French? Yes, English is easier than French. Yeah, wuu ka fudud. Sorry, easier wuu ka fudud. Easier waa ka fudud. English miyuu ka fudud yahay French? Okay, easier ka fudud. Englishku miyuu ka fudud yahay luqadda Faransiiska? Yes, ha, Englishku wuu ka fudud yahay luqadda Faransiiska. Okay, aynu dib ugu noqono, waxaan su'aalahan noo dhankeena waa maxay? Number 1 waa inaad ogaataa sida loo isticmaalo comparative-ka ama isbarbardhiga. Su'aalahan aan weydiinayno dhan waxaan isbarbardhigaynaa laba shay soo ma. Number 1 waxaan isbarbardhigaynaa maxay? Father iyo mother. Okay, number 2 Brussels iyo Berlin. Number 2 is what? You and me. Number 3 water and milk.
Number 4, Brazil and Germany. Number 6, waxaan isbarbar dhigaynaa maxay galna. Are you at the beginning of the week? Sorry, at the end and the beginning. Dhamaadka iyo bilowga weeka ayaan isbarbar dhigaynaa. Inta ugu dambeysa maxaan isbarbar dhigaynaa maxay? English iyo French. Okay, English iyo French. Okay, and markaan saa wax soo barbar dhigayso ama laba shay aad barbar dhigayso waxaad isticmaalaysaa comparative. Alright, and comparative kana waxaan niri waa qayb adjective kamid ah ama sifooyin ka tirsan. Waxaana loo qaybiyaa aan niri kuwa hal dabaq leh iyo kuwa laba dabaq leh. Okay, waxaan qaadano dhan waa kuwii halka dabaq lahaa ee lagu daray er-ta. Okay, kuwii halka dabaq lahaa ee er-ta lagu daray way iyo kuwii labada dabaq lahaa ee y-da ku dhamaanayay ee iyagan er-ta ee qasab ku noqonaysa. Okay, for example, hagan maxaa haysanaa older er bay leedahay, younger ka yar er, bigger ka weyn, smaller ka yar, taller ka dheer, shorter ka gaaban, cheaper ka raqiisan, hotter ka kulul, colder ka qabow, happier ka farxad badan, easier ka fudud. Okay, arday cashirkeen intaasaan kusoo koobaynaa maanta. Waxaa noo haray weli comparative-kii waa noo sii socda. Waxaan qaadan doonaa ereyada 3 dhawaaqa iyo kuwa 4 dhawaaqa sida loogu bedelo comparative iyo sida loo isticmaalayo insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.